mararka qaarkood qofku wuxuu raacaa damaciisa iyo rabitaankiisa isagoo u malaynaya inuu saxan yahay, balse dhab ahaantii wuxuu burburinayaa naftiisa iyo nolosha dadka ku xeeran. Asalaamu calaykum, kusoo dhawaada sheeko cusub. Haddii aad jeceshahay sheekooyinka noocan ah, fadlan muuqaalkan daawi lahay dhammaadka kana mid noqo qoyskeena adigoo subscribe garaynaya, sidoo kale gambale ka furo si ay kusoo gaaraan muuqaaladeena. Sidoo kale ilowni muuqaalkan la gareyso. Haddaba noo bilaabo sheekadeena. waxaa dib ugu laabanaynaa sanadkii 2018 magaalada Qaahira ee dalka Masar, gaar ahaan xaafad heer sare ah. waxaa halkaas ku noolaa qoys ka kooban 4 qof. Aabbaha waxaa la oran jiray Caadil, wuxuuna jiray 49 sano. wuxuu ka shaqayn jiray ganacsiga dhismaha. xaaskiisa waxaa la oran jiray Saxar, waxayna jirtay 36 sano. waxay lahaayeen 2 wiil. midka weyn wuxuu ahaa Muhanad oo jiray 17 sano, halka kan yarna uu ahaa Faris oo jiray 15 sano. labadubana waxay ahaayeen arday oo iskuul ay dhiganayeen. Saxar waxay ahayd haweeney aad u qurux badan oo si weyn isku daryeesha. waxay aad ugu taxadiri jirtay cuntadeeda, jimicsigeeda iyo labiskeeda. mar walba waxay raaci jirtay moodalka ugu dambeeya ee magaalada ka socdo. waxayna lahayd waali, yacni qof oo ka taxadara ama la socda caafimaadkeeda. waxay ahayd gabar keliya oo hooyada dhashay. aabbaheedna wuxuu geeriyooday iyadoo yar, sidaa darteed waxay ku barbaartay hooyadeed iyo adeerkeed. rag badan ayaa addoonan jiray quruxdeeda darteed, laakiin badankood way diidi jirtay sababtoo ah xaaladooda dhaqaale kuma aysan qancin. maalin ayaa nolosheeda waxaa soo galay Caadil. inkastoo uu ka weynaa 13 sano, muuqaalkiisuna aanu ahayn mid soo jiidasho badan, haddana wuxuu lahaa lacag, gaari iyo guri u gaar ah. taasi waxay Saxar u aragtay ama ula muuqatay in uu ku habboon yahay hamigeeda. waxay guursatay Caadil, balse sanad yar kadib waxay dareentay in hamigeedu aanu halkaas ku ekaan. waxay bilowday inay rabto nolol ka sii sareysa. talaabaadkeeduna wuu sii batay. Caadil jacaylka uu qabo awgiis wuxuu isku dayay inuu u fuliyo wax kasto ay codsato. sanadihii way socdeen, carruurtuna way koreen. markii wiilasheedu qaangaareen, Saxar waxay bilowday inay dareento inay da' noqonayso. taasi waxay sii kordhisay xiisaha ay u qabtay jimicsiga, cuntada caafimaadka leh iyo waqti badan inay ku qaadato jiimka. dhanka kale, Muhanad iyo Faris waxay isku barteen koox saaxiibo ah. waxay barteen oo la saaxiibeen koox saaxiibo ah oo anshax xumo lahaa. waxay bilaabeen inay dayacaan waxbarashadooda, habeenkiina banaanka ay ku soo daahaan. mar kasta oo aabbahood wax weydiiyena waxay ka baxsadeen jireen jawaabta, ma aysan ka jawaabi jirin, way ka dhuumin jireen. halka hooyadood Saxarna aysan haba yaraatee dan ka lahayn waxa carruurta samaynayaan. Caadil ayaa guriga yimid abbaare 5 fiidnimo, laakiin wuxuu la yaabay in guriga cidna ka waayay, guriga qof ma joogin. wuxuu markiiba wacay xaaskiisa Saxar. Saxar waxay ugu jawaabtay inay jidka ku soo jirto, ayna saaxiibadeed la maqneyd iyadoo wax soo iibsanaysa. Caadilna aad buu uga xanaaqay, wuxuuna ku canaantay inay guriga ka baxday iyadoo aan xitaa u sheegin. markaas ayuu weydiiyey halka ay wiilashooda joogaan. Saxar si qabow ayay ugu jawaabtay, ma aqaan, malaha saaxiibadood ayay la jiraan. jawaabtaasna waxay sii kordhisay walwalka Caadil. wuxuu isku dayay inuu la xiriiro Muhanad iyo Faris, balse labadoodaba teleefoonadooda way dansanayeen. qiyaastii nus saac kadib waxaa soo wacay lambar uusan aqoonin. ninkii hadlay codkiisu wuu adkaa. wuxuu sheegay in labada wiil ay dagaal ka geysteen maqaaxi, isla markaana hadda lagu hayo saldhigga booliska. Caadil si degdeg ah ayuu halkaas ugu baxay. markii uu gaaray ayuu ogaaday in wiilashiisa lagu xiray, burbur ay u geysteen maqaaxida inta dagaalka uu socday, isla markaana dacwad laga qoray. isagoo aad u careysan ayuu guriga ku laabtay. markii uu Saxar arkayna, muran culus ayaa dhex maray. wuxuu ku adkeeyey ama uu ku eedeeyey inay dayacday carruurta, isla markaana aysan waxba kala socon noloshooda. laakiin Saxar iyadana si qabow ayay ugu jawaabtay, carruurtu way weynaadeen, adiga mas-uul ka ah inaad la saaxiibto oo aad hagto. Caadil wax jawaab ah kama bixinin. isagoo niyad jabsan ayuu iska baxay. maalintii xigtana wuxuu la kulmay dadkii dacwada ku lugta lahaa. lacagtii qarashaadka ayuu bixiyey, waxaana lagu heshiiyey in dacwada lasoo afjaro.
markii uu guriga yimid ayuu wiilashii ka qaaday telefoonadoodii wuxuuna ku amray inay guriga joogaan. Wuxuu go'aansaday inuu isaguna si dhow ula socdo carruurta maadaama uu arkay hooyadood inaysan xil iska saarin. Saxarna arrintaas waxba kama aysan qaban. Muddo ayaa ka soo wareegatay. Muhanad wuxuu dhammeeyey dugsiga sare wuxuuna galay kulliyadda tiknoolajiyadda macluumaadka information technology. Farisna wuxuu galay fasalka ugu dambeeyay ee dugsi sare. Dhanka kale Saxar sidii ay ahayd balse xitaa waxay ka sii dartay xiisaheeda quruxda iyo daryeelka jirku aad ayuu u kordhay. Caadilna weli wuxuu isku dayay inuu ka farxiyo isagoo u fulinaya inta badan rabitaankeeda. Wax walba waxay sidaas ahaayeen ilaa laga gaaray sanadkii 2021. Saxar markaas waxay jirtay 39 sano. Waxay bilowday inay ka walwasho inay ku sii dhawaanayso da'da 40 sano ah maadaama hal sano uga hartay. Sidaa darteed waxay si xad dhaaf ah u raadinaysay dhakhaatiirta qaliinada qurxinta. Ugu dambeyn waxay la kulantay dhakhtar caan ah oo lagu magacaabo Ziyaad. Waxay samaysatay dhowr qaliin oo qurxin ah. Natiijadiina aad ay ugu farxday. Muddo kadib waxay noqotay qof si joogto ah ugu xiran rugta caafimaadka ee Ziyaad. Dhakhtarkuna wuxuu arkay haweeney aad u qurux badan. Maalin ayay wacday si ay balan u qabsato balse waxaa loo sheegay in dhakhtarku shaqada ka maqan yahay sababo qoys. Markii ay wax badan weydiisay ayay ogaatay in xaaskiisii geeriyootay kadibna shil gaari sanadihii karmana. Markii ay wax badan weydiisay ayay ogaatay in xaaskiisii geeriyootay kadib shil gaari ee gashay. Gabadhiisiina karma ay hadda ku jirto qaybta daryeelka degdega ah oo dhaawac ah. Saxar waxay u tagtay isbitaalka si ay ugu tacsiyeyso una dhiirigeliso. Maalintaas waxay noqotay bilowga xiriir cusub oo dhexdooda ah. Markii karma caafimaaday oo guriga ku soo noqotay, Ziyaadna shaqadiisa dib ugu laabtay. Xiriirkoodii wuxuu isu bedelay saaxiibtinimo. Waxay bilaabeen inay si joogto ah telefoonka ugu wada hadlaan. Caadilna waxba kama uusan warqabin. xiriirka ka dhexeeya Saxar iyo Ziyaad maalin ka dambeysa wuu sii xoogeysanayay. Saxarna waxay iska dayacday gurigeedii iyo carruurteedii. Muhanad iyo Faris waxay bilaabeen inay ogaadaan in hooyadood mar walba qolkeeda isku xirto telefoonada saacado badan ee ku hadasho qof aysan garanayn. Waxay sidoo kale arkeen inay markasta aabahood muran la gasho sabab la'aan isla markaana guriga ka baxdo maalin kasta. Muhanad wuxuu go'aansaday inuu dabagal ku sameeyo hooyadiis. Maalin ayuu arkay iyadoo aadaysa dhakhtarkii Ziyaad halkaasna kula kulantay dhakhtarkii Ziyaad iyo gabadhiisa. Ninkaas wuxuu ahaa Dr. Ziyaad dhakhtarka ay sheegay. Gabadhuna waxay ahayd Karma oo dhakhtarka ayaa dhalay. Waxa ugu yaabka badan waxay ahayd sida Saxar ula dhaqmayso gabadha yar. Waxay siinaysay jacayl iyo daryeel aad u badan sidii inay iyadu hooyo u tahay. Muhanadna aad buu uga naxay. Wuxuu isweydiiyey sababta hooyadiis jacaylkaas u siinayso gabar kale halka isaga iyo walaalkiis aysan weligood ka helin daryeelkaas oo kale. Isagoo qalbi jaban ayuu guriga ku noqday. Wax yar kadib Saxar ayaa timid. Iyadoo aan xitaa carruurteeda salaamin ayay si toos ah qolkeeda u gashay. Muhanadna ayaa daba galay. Wuxuu u sheegay inuu arkay iyada iyo ninka ay la kulmaysay. Laakiin halkii ay wax sharaxi lahayd fahansiin lahayd way ku xanaaqday. Waxayna isku dayday inay ku eedeyso inuu yahay basaas. Muhanadna wuxuu yidhi waxaan noqday nin weyn. Waxaan xaq u leeyahay inaan ogaado waxa qoyskeena ku socda. Markaas ayay Saxar qiratay inaysan doonin inay la sii noolaato Caadil aabihiis macnaha. Waxay sheegtay inay gurigeeda u aragto khalad ay gashay iyadoo da'yar ah isla markaana ay rabto inay bilowdo nolol cusub. Waxay intaas ku dartay in carruurteeduna hadda waaweyn yihiin qaangaareen aysan u baahnayn sidii hore daryeel. Muhanad wuxuu ka codsaday inay joojiso xiriirka ay la leedahay Ziyaad. Wuxuuna uga digay inuu aabihiis u sheegi doono haddii aysan ka laaban go'aankeeda. Isagoo qalbi jaban ayuu qolka ka baxay isagoo aan ogeyn in go'aanka ay hooyadiis qaadatay uu wax walba bedeli doono. Qiyaastii nus saac kadib Muhanad wuxuu si lama filaan ah u arkay hooyadii oo soo qaadatay boorso weyn oo safar ah. Isagoo indhihiisa ilmo ka muuqdaan ayuu daawanayay iyadoo albaabka ka baxaysa. Farisna ayaa isku dayay inuu la hadlo balse kama aysan jawaabin.
waxay fuushay gaarigeedii waxayna ka tagtay guriga. Markii Caadil shaqadii ka soo laabtay oo ogaaday in xaaskiisa guriga ka maqan tahay, isla markiiba wuu wacay. Saxar waxay si cad ugu sheegtay inaysan doonin inay sii wada noolaadaan, haddii uusan furinna uusan raali ka noqonayna ay maxkamadda u gudbi doonto. hadday furi weyso maxkamadda toos u aada ayay tiri, macnaha qasab waa inay igu furtaa. Laga bilaabo maalintaas khilaafkoodii wuxuu noqday mid aad u xooggan. Caadil dhowr jeer ayuu isku dayay inuu la hadlo, inuu dejiyo xaaladda, uguna qanciyo inay guriga ku soo noqoto, laakiin Saxar go'aankeedii kama aysan noqon. Ugu dambeyn Caadil wuxuu ogolaaday furiinka, ma ahayn inuu doonayay, balse wuxuu ka baqayay farxaddeeda iyo muran sii dheeraada. Furiinkii rasmiga ahna wuu dhacay. Caadil weli wuxuu rajeynayay inay maalin uun ka shalay doonto wixii ay samaysay oo ay dib u soo noqon doonto, laakiin taasi marnaba ma dhicin. haddaba muuqaalka haddaa weli saaran like, waxaa ka codsanayna muuqaalka noo like garayso, saxaabta la sii wadaagto. Hal bil kadib furiinka, Muhanad wuxuu go'aansaday inuu mar kale u tago hooyadii. Wuxuu rajeynayay inuu ku qanciyo inay dib ugu noqoto qoyskooda si ay u badbaadiso wixii ka haray reerka, laakiin waxa ay u sheegtay ayaa qalbigiisa si weyn u dhaawacay. Saxar waxay u sheegtay inay qorsheynayso inay guursato, isla markaana ay dhammaato muddadii ciddada. ciddada markay ii dhammaato waxaan rabaa inaan guursado, ayay ku tiri Tutor Ziyaad. Muhanad aad buu u xanaaqay, wuxuuna yidhi, ma waxaad nooga dooratay nin kale? ma sidaan bay noogu fududahay inaad naga tagto? Laakiin Saxar kama aysan ka bedelin go'aankeedii. hadalkaas Saxar dheg muu dhigin. waxay ku celcelisay inay xaq u leedahay inay nolosheeda u noolaato sida ay rabto, isla markaana carruurteedu hadda qaangaareen. muddo yar kadib markii ciddadii dhammaatay, waxay guursatay Tutor Ziyaad, waxayna u guurtay gurigiisa. Muhanad iyo Faris warka guurka waxay ka maqleen saaxiib ay hooyadood lahayd, fariintaas soo gaarsiiyey. labada wiil aad bay u niyad jabeen, waxay isku soo xireen guryaha, dadkana way iska fogaadeen, halka Caadilna uu shaqada isku mashquuliyey si uu u iloobo xanuunka qoyskiisa ku dhacay. maalin ayaa Saxar wacday Faris, waxayna ka codsatay inuu isaga iyo wiilkiisa ay la kulmaan. labadii wiil way aqbaleen. waxay ku kulmeen naadi, meel oo waxay ku kulmeen oo maqaaxiyo kaleeta. Saxar waxay isku dayday inay u sharaxdo in furiinku yahay arrin uu sharciga ogol yahay marka nolosha qoyska ay sii socon weydo. waxay ka codsatay inay fahmaan go'aankeeda. wax yar kadib waxaa goobta yimid Tutor Ziyaad isagoo wata gabadhiisa Karma oo markaas jirtay 14 sano. Karma waxay ahayd gabar degan oo wejigeeda ay ka muuqato xishood iyo dabeecad wanaagsan. markii ay arkeen, Muhanad indhaha kama qaadin gabadha, iyadoona marka qaar si xishood leh ayay u eegeysay. dhammaantood way wada qadeeyeen, jawiguna wuxuu u ekaa mid degan. Saxar aad bay ugu faraxday in wiilasheedu aqbaleen inay la kulmaan ninkeeda cusub, waxayna ka casuuntay inay mararka qaar gurigeeda yimaadaan. markii ay baxeen, Faris wuxuu walaalkiis weydiiyey, ma waxaad hadda aqbashay wixii dhacay? Muhanad wuxuu uga jawaabay cod hoose oo xanaaq ka muuqdo, maya, arrintani weli ma dhammaan. dhowr maalmood kadib, Saxar waxay mar kale ku casuuntay wiilasheeda xafladda dhalashada Karma, gabadh yareed. Muhanad wuu aqbalay, xitaa wuxuu weydiistay ciwaanka guriga, laakiin maalintii xafladdu dhaceysay ayuu wacay hooyadii isagoo ka cudurdaartay in Faris uu xanuunsanayo, sidaa darteedna aysan imaan karin. inkastoo uu sidaas u sheegay, haddana maskaxdiisa waxaa ka socday qorshe kale oo aad uga duwan waxa uu dadka u sheegay. maalmo kadib, Muhanad wuxuu bilaabay inuu maalin kasta guriga ka baxo fiidkii, isagoo soo laaban jiray habeenkii dambe, waqti dambe habeenkii. mar kasta oo Faris weydiiyo halka uu aadone, wuxuu ugu jawaabi jiray, waqti kale ayaan kuu sheegi doonaa. toddobaad kadib, Muhanad wuxuu guriga ku soo laabtay isagoo faraxsan. wuxuu Faris ula baxay qol gaar ah, halkaas oo ay muddo dheer ku wada hadleen. inkastoo Faris markii ka caga jiidayay qorshaha uu walaalkiis sheegay, haddana ugu dambeyn wuu ku raacay. maalintii Isniinta abbaare 6 fiidnimo, labadoodu waxay xirteen dhar madow, koofiyad iyo maaskaro qarinaysa wejigooda. saaxiibadood ayaa gaariga ku qaaday ilaa guriga laga gaaro Tutor Ziyaad dhakhtarkii. markii ay halkaas gaareen,
waardiyihii dhismaha ma joogin maadaama uu masjidka u aaday salaada cishaha. Waxay si degdeg ah ugu koreen dabaqa uu deganaa Dr. Ziyaad. Markii albaabka la garaacay, Karma ayaa si taxaddar leh u furtay, waxayna u sheegeen magac ay ku qiyaamayeen, balse markii albaabka furtay ay xoog u galeen guriga. Waxay ku qasbeen inay aamusto, dabadeedna waxay u geysteen weerar aad u daran oo sababay dhaawacyo culus. Intii ay guriga ku jireen, waxay sidoo kale ka qaateen lacago iyo waxyaabo qiimo lahaa. Markii ay arkeen in xaaladdeedu aad u liidato, cabsi ayaa ku dhacday labadii wiil, waxayna si degdeg ah uga baxsadeen guriga. Intii ay sii baxayeen, waxay isku dhaceen waardiyihii soo noqday, dabadeedna way ka carareen iyagoo saaxiibadood gaariga kula baxsaday. Qiyaastii saacad kadib, Dr. Ziyaad iyo Saxar ayaa guriga ku soo laabtay. Markii ay arkeen dad isku imaaday oo albaabka iyo waardiyihii oo dhaawacmay, waxay dareemeen in wax halis ah meesha ka dhaceen. Waxay si degdeg ah ugu ordeen guriga. Gudaha waxay ku arkeen alaabtii oo la kala daadiyey. Dr. Ziyaadna wuxuu ku cararay qolka gabadhiisa, halkaas uu ku arkay Karma oo dhaawac culus qabta. Isagoo argagaxsan ayuu si degdeg ah isbitaalka ula aaday. Dhakhaatiirtu waxay geliyeen qaybta daryeelka degdega ah, booliiskana isla markiiba waa la wargeliyey. Maadaama Karma miir beel ay ahayd, booliisku ma aysan awoodin inay wareystaan. Kaamirooyinka ammaanka ayaa laga helay muuqaal muujinaya laba qof oo wajigooda qarsoon yihiin, balse muuqaalkooda ma caddeen cidda ay ahaayeen. Dhanka kale, Mohanad iyo Faris markii ay maqleen in Karma weli nooshahay, cabsi ayaa gashay. Waxay gurigooda ka qaateen lacag iyo dhar, kadibna waxay u baxsadeen meel uu saaxiibkood u diyaariyey si ay ugu dhuntaan. Caadil markuu guriga yimid oo uu waayay labadii wiil, isla markaana ogaaday in lacag guriga laga qaatay, wuxuu isku dayay inuu la xiriiro, laakiin taleefoonadii way dansadeen. 3 maalmood kadib, Karma waxay dib u heshay miirkeedii, waa soo hadashay. Waxay booliisku u sheegtay magacyada dadkii guriga u galay ee weerarka ku qaaday. Markaas kadib, booliisku wuxuu bilaabay baaritaan ballaaran. Waxay ugu dambeyn gaareen saaxiibkii caawiyey, kaas oo u sheegay halka ay Mohanad iyo Faris ku dhuumanayeen. Labadii wiilna waa la soo qabtay, waxaana lagu bilaabay baaritaan. Intii lagu jiray su'aalaha, waxay sheegeen in ujeedadu ahayd inay ka argoostaan Dr. Ziyaad, maadaama ay u arkeen inuu qayb ka ahaa burburkii qoyskooda. Waxay sidoo kale qirteen inay muddo dheer nacayb u qaadeen hooyadood, iyagoo rumaysnaa inay ka dayacday koritaankooda iyo daryeelkooda. Kiiska waxaa loo gudbiyey maxkamadda dambiyada culus sanadkii 2023. Maxkamaddu waxay ku xukuntay labada wiil 15 sano oo xabsi ah. Sheekadu waxay ku dhammaatay murugo, inkastoo dad badan ay ku doodayeen in dhacdadani qoyska iyo go'aanadii waalidka ay qayb ka qaateen burburka qoyska. Haddana taasi marnaba cudurdaar uma noqon karto dambiyada culus ee la galay. Qofkii dhibaatada ugu weyn soo gaartay wuxuu ahaa Karma, oo ahayd gabar aan wax lug ah ku lahayn khilaafaadka qoyska. Halkaas ayay ku dhammaanaysay sheekadeena maanta. Haddaba adiga ma kula saxan tahay in labadii wiil go'aanka ay qaateen ma kula saxan yahay? Sidoo kale maxkamadduna ay ku xukuntay 15 sano xarig ah. Qaybta hoose faalada ayaa kugu sugaynaa du'aalidmo. Haddii ka heshay sheekadan, aylo inaa muuqaalkan la gareyso asxaabta kale si wadaagtooda noo cusubtaan subscribe soo dheh. Aad u maasatahay.